shirkan oo lagu go'aaminayay sidii gurmad bilaadanimo loogu fidin lahaa dadka iyo dunyada ay abaartu ku dhufatay ee ku tabaalaysan deegaanada bariga dalka waxa goobjoog ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda gaashaandhigga dib u dejinta wasiiru dawlayaasha waxbarashada iyo nabadeynta gobolada bariga oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ah iyo saraakiil sarsare oo ka socda xukuumadda Soomaaliland kulanka waxa warbixino qayladaan ka jeediyay gudoomiyayaasha gobolada Togdheer iyo Saraar iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Buuhoodle barasaabka magaalada Burco iyo barasaabka ku-xigeenka Caynaba xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo xubno haweenaha oo dhamaantoodba ka deyriyay xaaladda nololeed ee dadka ay abaartu saameysay ee ku sugan gobollo ay kormeer ku tageen inta badan aan arkaynay hooyo iyo caruur haysta waxaan u soo joognay qaar biyo ay u saareen 8 caruur ay wadataa waa laba dumar ah qaarna way xambaarsan waxaan ku niri waa maxay biyahana meesha saarta waxay tidhi maxaad karinaysaa man ma ku niri waxay tidhi waxa la waxaan kariyo ma hayo yararkaasaan ku sabaaleynaya laba kildoo madoobaaday bay u saartay intay biyo ku shubtay dab waxna uma hayso marka caruurtiina xoolii meeshan ay galeen waxaan dad ka daba tagto caruurta ka lumi marka waxay taagan tahay SOS meelaha waxaan ku soo aragnay 5 gobol dadka halkaan ku soo aragnay oo halka ay ku hayo maanta dadkaan aragnay waxaan dadka yimi xeergaa wirin bay qaar ka yimaadeen Yufle adigu Sanaag iyo Saraar iyo Saaxil 3 gobol ay dadkaasi ahaayeen ay ka yimaadeen shaaxidii gaadhay dhexdooda geed kasta aad aragtay waxa ku jira gaari waxyaalaha cajiibka aan argay waxa kamid ah habeennimadii ayaanu 2 nin oo wada socda ayaanu aragnay biyaanu siinay xagga ka timaadeen 7 shay soo socday ninka xagga joogta ma garanay meel joogo waxaanu ku xuwataa markaa xoogaa xoolaa intii gaarigu uu daadiyay wuxuu nagu yidhi haddii imika waraabe neefiga ka haysto awood aanu arkay ayuu hore u soo ka haysto imikana caawana hadduu ka haysto awoodan kaga soo celimaayay dadka soo qaxay iyo dadka laga yimid ee halkii laga soo qaxay laga yimid xaymka dal inagu waramayaa in xoolaha ay wataan hadaan ilaahay raxmaad shubin inaan rajo lahayn bisha November kuwii ay dul yimaadeen markii hore roobka helay ladnaana iyaga de wixii ay faa'iido lahaayeen laga qaadiyo iyaguna waa la mid wixiiba waxaad moodaynay hadaan ilaahay inoo sahlin ay damis ku yihiin bisha wax ka dambeeya sida loo sheegay bay xoolaha iyo dadku deeysa saarnaayeen bal waa arka xoolo iyo dad gaari wada saarano xooluuna baqtiyeen oo meyd yahay oo kolba neef laga tuuray jidkaan yaan maxaa ku arag يعني laga sheekeyn karo dhibaatada halka taal waxaan u tagay anigu inama yar iyo caruur yar oo geed hoostiisa ka jooga oo aan waxba haysan oo waxay cunaan aan haysan hooyadoodna ag fadhido ilmo yaro deg nooha laba aan isdaanin oo tirak oo inta soo qof ah ayaan maray dadkaasi hooyde ma wataan waa dad gaari uun meel dhigay hooy ma wataan caafimaad daraysa hooy la'aan bahaysa cunto la'aan bahaysa biyo la'aan bahaysa baahidii bid'aad ku dhab waysa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka dib u dejinta Cali Saciid Reegal iyo Sheekh Maxamed Aadan Maxamed oo kamid ah gudida heer qaran ee abaaraha oo kulanka hadallo ka jeediyay waxa ay dhamaantoodba sheegeen in loo baahan yahay jawaab degdeg ah oo laga bixiyo xaaladda si xumaanaysa ee ay sababtay abaaraha ka jira deegaanada bariga Soomaaliland anagu leeyahay aan gelino dhibta afada inagu timid oo aan kala go'ol lahayn oo tii hore inagaan wali ka qubaysan midda kale timid oo muujizad rabbaaniya wala kulli shay jacalna sababan faatba'a sababan مثلا واسكا يمادا ما جرو الا سبب با jirta waa imtixaan ilaahay soo waxaan ka bariyaa in ilaahay si dhaqso ah inooga saaro oo inaga daweeyo oo faraj ilaahay noo keeno waayo arrimaha aad ka sheekaynaysan haddaan ilaahay wax ka qaban cid wax ka qabanaysa ma jirto ilaahay wax ka qaban kara inaga si waxa la inaga doonayaa dadaal baa la inaga doonayaa iyo wixii aynu qaban karno inaynu qabanno waxay runtii malaaca ku macaanaan lahayd warbixintiina
deemanka si waa dadkii soo arkay baa warramay marka hore ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay abaarta inaga jabiyo raxmaad inoo shubo waxadna ogaataan inaan gacanta bilaadanka waxaynu ku shaqeynaa aanay wax weyn ilaahay ay weyn tahay oo ay ilbiriqsi waxa aynu ku wareeray ay iyadoo ilbiriqsi wada qaboojin karto galbeed markii ay dhibaatadu ka dhacday waa la isugu wada tago shicib iyo dawlad hay'ado ummado kale Soomaaliland baahayno inoo soo gurmaday cid walba isugu tagto ilaa roobki da'ay ilaa iyo roobki uu da'ay mar walba qayladii waa taagnayd maalintii roobki da'ay ayaa qayladii yaraatay horta waxaad ogaataan inaynu ilaahay isku xidhno niyadeena iyo qalbigeennana ku xidhno inuu ilaahay abaarta inaga kor qaado nuurudiin cabdullaahi cali joog iyo rafiiq rashiid bullo telefishinka qaranka Somaliland burco.